marka hore ilaahay baa mahadle marka xigtana 20kii bishii labaad 2021 goor ay saacadu ahayd 18:49 PM waxaa jirtay dhacdo ka dhacday saldhigga booliiska Maxamuud Haybe taasoo dhex martay ciidanka booliiska saldhigga iyo gabadh la yiraahdo Ooda Garays iyo hooyadeed iyadoo social media ama baraha bulshada si xaqiiqada ka fog loogu buunbuuniyay ayaamahan ayna soo dhaafnay haddaba waxaanu bulshada u iftiiminaynaa xaqiiqada dhabta ah sida ay wax u dhaceen iyo sidii loo dhameeyey 20kii bishii labaad 2021 abaaro 18:49 gabadh la yiraahdo Ooda Garays iyo hooyadeed Suleekha Cabdulaahi gaari Suzuki ah oo ay wateen ayaa si xoog ah ku soo galay saldhigga booliiska Maxamuud Haybe goor gobolku dhacay kala joogsan waayay askarigii waardiyaha ka ahaa oo qori ku hayay nasiib wanaag askarigii xabad kuma ridin markii ay istaagtay kadib askarigii wuxuu ku yidhi dib u qaad gaadhiga oo baarka ka dhig iyadoo ka dhaga adeegtay inay gaadhigii dhigto baarkinkii uu askarigu u cayimay kadibna goobtii kaga degtay baawarkii xaggii saldhiggana u dhaqaaqday askarigii ayaa soo qabtay shalmadda kuna yidhi gaadhiga gal oo dib u qaad kadibna askarigii ayay dhirbaaxo u dadejisay askarigii ay dhirbaaxday isagoon far saarin ayaa waxaa la hadashay gabadh askariyeed ah oo waardiyaha ka mid ahayd iyadiina way la dagaalantay dhaawacna way gaadhsiisay faldambiyeedkaasi siduu u dhacay oo kooban waa sidan number 1 si maqiiqan ayay waardiyihii saldhigga u soo gashay iyadoo gaadhigii wadata number 2 dib markii u qaad lagu yidhi way diiday gaadhigiina way ka degtay xaggii saldhiggana way u dhaqaaqday number 3 askarigii waardiyaha ahaa ee gaadhka dib u qaad ku yidhina way dharbaaxday number 4 askariyadii ka qabo istrina way la dagaalantay wayna dhaawacday halkaa markay marayso hooyadii dagaalka ayay ka qayb qaadatay askarigii kalena waa la dhaawacay intii ay dagaalkan ku jireen ayay xagtimaha soo gaadheen Ooda Garays sababtaas ayaana keentay in la xidho xariga kadib waxaa ciidanka booliiska u yimid odayaasheedii oo uu ka mid yahay caaqilkeedii waxay ka garaabeen falkii khaladka ahaa ee ciidanka booliiska lagula kacay haaligelinna way ka bixiyeen wixii meeshaa ka dhacay waxaanay codsadeen in loo sii daayo eedaysanayaasha waxaanay ballan qaadeen in aanay wax dambe oo khaldaad ah ku samayn doonin ciidanka booliiska taasoo ku cad nootaayada sharciga ah ee halkan aan idinka tusayo iyagoo oo miyirkooda iyo maankoodaba qaba ayay hooda iyo hooyadeedba saxiixeen nootaayada sharciga ah oo lagu sii daayay iyo odayadoodii iyo caaqilkoodii iyo waxgaradkoodiiba waxaa nasiib darro ah in ceebayn iyo sumcadilis loo geliyo baraha bulshada ciidanka booliiska iyadoo aan ciidanka booliiska waxba laga weydiinin ilaa hadda oo xafiiskii uu taliska ciidanka booliisku sameeyey cabashada xitaa mayna imanin oo aan la iman xitaa ilaa iminka halkaas waxaa ka cad in ujeeddada laga leeyahay ay tahay in ciidanka booliiska iyo bulshada colaad la isku geliyo cid kastaaba dabada ka riixaysay haddaba laga bilaabo maanta cidna ka yeeli mayno aflagaado ceebayn kutubasho sharci iyo kala dilista booliiska iyo bulshada ay dadka qaar caadaysteen shaqana ka dhigteen waxaana isla taagi doonaa sharciga iyo cadaaladda haddii ilaahay yidhaahdo
arrintan hooda garays iyo hooyadeedna garsoorka iyo cadaaladda ayaanu horgeyn doonnaa haddii ilaahay yidhaahdo